war-saxaafadeedkani oo ka soo baxay shirkadda dahabshiil ayaa lagu yidhi waxaannu la dareennahay macaamiisha dahabshiil ee daafaha dunida ku nool iyo warwarka ay ka qabaan xanuunka covid-19 amaba coronavirus oo aad ugu fidaya dunida oo dhan iyo sidii ay eheladooda iyo asxaabtooda u gaadhsiin lahaayeen lacagihii ay hore ugu diri jireen. sidaasi daraaddeed waxaannu macaamiisha dahabshiil la socodsiinaynaa ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkani in lacagaha aad eheladiina u soo diraysaan aad ku soo diri kartaan mobile appka Talk Remit amaba www.talkremit.com idinka oo jooga guryihiina. shirkadda dahabshiil sidoo kale waxay ku wargelinaysaa macaamiisheeda joogta dalka gudihiisa in lacagaha loo soo diraya ay ku heli karaan moobaylkooda iyaga oo jooga guryahooda. sidaasi awgeed macmil fadlan la wadaag ehelkaaga iyo asxaabtaada lambarkaaga Somtel ee leh adeega idahab si lacagta laguu soo dirayo aad ugu hesho si fudud moobaylkaaga. shirkaddu waxay ku dadaalaysaa inay markasta sii labilaabto dadaalkeeda adeeg bixineed wakhtigan adag ee lagu jiro si aan u xaqiijino ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan in dhammaan macaamiishaydu ay si degdega u helaan lacagaha ay u soo dirayaan eheladooda iyo asxaabtoodu. shirkadda dahabshiil waxay macaamiisheeda sidoo kale ay ku waaninaysaa inay ku dadaalaan ilaalinta nadaafadooda iyo joogtayntooda iyo inay raacaan dhammaanba talooyinka, tusaalooyinka iyo tallaabooyinka caafimaad ee lagaga hortegayo xanuunka covid-19 amabase coronavirus. ugu dambayna waxaa war-saxaafadeedkani ka soo baxay shirkadda dahabshiil lagu yidhi waxaad kala socon kartaa si joogta ah wixii ka soo kordha xaaladaha xanuunka iyo adeegyada dahabshiil degalkayga www.dahabshiil.com. ilaahayna waxaannu uga rajaynaynaa inuu ina hareer mariyo masiibadan caafimaad. wabilaahi towfiiq.